السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا وجهنا القادرة هي channel كني بالخير تي في قفك channel كي يكون سبحان الله بليز سبسكرايب لايك and share. رمضان مبارك لما أنت ملك استاذ شو بتعمل أنت كتب بعد واحد منها يا ما أنت شيء قاعد وحي سبضة أو كل عضي فاميلي قويس أنا ميل دقن قويس كاسو محنكو هذا ككوبنا قبر إيو هو يدي إيو أبيه كبعد واحد كل عضي نين أي صاحب هايين reerkaas qoyska oo jaarkooda ama saaxiib ahaayeen oo ku dhawaa kabacdi wuxuu sameeyay iyagu suuqa jooga ayaa waxa uu dabcay in inantu ay gurigii lagu celiyo dabadna kabacdi isaga yidhi waxaan sii socdaa xaggii xaafadii oo xaafadii baan ku noqonayaa maadaama xaafadii ku noqonayo faraska hayla sii raacdo xagga dambe faraskan ku sii qaado si markaa ay u tagto gurigeedii markaa gabadha yar waxa lagu magacaabaa gabadha uu qaadi doono waxa la yiraahdaa Jam Robek ninkana waxa la yiraahdaa batch feedings baa la yiraahdaa marka ninka batch feedings baa wuxuu dabcay inuu ku qaado gabarta yar faraskiisa wanaagsan heerkii markuu sidaa ku qanciyay hooyadii iyo aabihii inta dhalay kabacdi way ka ogolaadeen oo waxay yiraahdeen okay waaye gurigii geeyo sidaa ku kaxee inta kabacdi waxa dhacday meel jaaniya edib ay dhigtay inantii yareedii isagii waa kala waayay muddo markii la la'aa 5 wiiga 5 usbuuca ayaa waxa dhacday in uu inantaasi geeyay markaa dalkaasi Mexico dalka Mexico markuu geeyay ninkaasi waxa uu inanta yar uu ku sameeyay uu kula kacay waxa way wax cajiib ah oo inta badan aan ka dhicin ilma yar bay ahayd da'deedu waan idin sheega dhaafay waxay ahayd taariikhdu 1974 da'deeduna gabadha yar waxay dhamayd xilliga 12 jir waxa dhacday wuxuu kula kacay waxay noqotay afdu hooyadii aabihii iyo dalkii ay ku noolayd oo dhan way yaabiyeen marka inanta yar waa la waayay kabacdi wuxuu geeyay waddanka Mexico isagoo bartaasi inantii yaray hotel dejiyay kabacdi waxa dhacday markii uu geeyay Mexico waxa ay ku dhacday ama inantii yaray 12 jirka ahayd inuu halkaasi ninkii uu ku farxumaynayo afduub uu geysto oo uu ku haysto meel ku taalo waddankaasi Mexico waxa taa ka siyaa badan haba ku sameeya haba afduubo farxumayn inkastoo ay dhib tahay oo qof bilaadan oo hooyo aabiyo ay reer kala dhaleen dhibaato ay ku tahay inuu qof afduubo oo intaas oo dhibaato u geysto balse hadii ay dhacday hadana waxa uu maskaxdu ka sii haday oo inantii wuxuu ku riday waxa la yiraahdo brainwash waxa dhacday inuu iyadii wixii oo dhan loo siiyay uu rabo inuu ku abuuro sheekooyin isaga jacaylkiisa oo dantiisa meel marsaday kabacdi inantii yaray markaa waxa bay labadoodiba maaragtay maskaxdii inantii yaray step by step ayay si tartiiba ayuu maaragtay inantii yaray xiriir ula sameeyay kabacdi waxa dhacday sidii xiriir jacayl oo kale muddo waxay sidaas inantii yaray ku jirtaba waxa weeye waa la ogaaday markii la ogaaday dabeetana ninkii waa la qabtay waa la xiray muddo labayo ka bacdiya markaa waxa ogaaday booliskii dabadna way u tagay way qabteen inantii yareed waxa weeye reerkoodii bay ayaa loo soo maxaan ku dhahday loo soo gacan galiyay waxa dhacday isagina in la xiro markaa maxkamaddu waxay ku xukuntay markii isaga 5 sanadood balse markii lawyer uu qabsaday muddadii because ninkan wuxuu la saaxiib ahaa Jam Robek hooyadeed ayuu la saaxiib ahaa ninka la yiraahdo batch feedings bay isaga la yiraahdaa kabacdi lawyerkii markii qabsaday lawyerkii wixii waa lagu qoniyay dawladii inuu xiriir jacayl ahaa inuu inanta maartay jacayl u qaaday inuu sareysantay iyadoo de xeerarkii caalamiga ah ee sharciyadii ay ka hor imanayso oo because qofku markuu guur qasaba talabaad waxa ka sii daran guurka qasabka inantii waa 12 jir wadamada reer galbeedka waxa weeye dib weyn bay ka noqonaysaa haddaanay labada family aanay maartay ogolaanin oo aanay reerku iyagoo maba dhacdaba horta inta badan de inaga wadamadeena ka dhacday in qof yar isku guursado oo la weydiisto oo de maartay la arooso oo maartay iyadoo wadamada muslimka amaan qasab lagu guursan maartay ilmaha yar laakiin hadduu de qofka yar uu jeclaado still 12 jir waa caadi diintu way ogoshay balse laakiin wadamada reer galbeedka ka hor imanaysa de gursi bay noqonaysaa waxa markaa lawyerku ku qacay in gabadha yar uu jacayl u qaaday kabacdi sidaas ay noqotay sheekadu waa bari hore dhacday 1970 bay dhacday markay saas u dhacdayna markii ay sidaas u dhacday waxa dhacday dabeetana in
leydi 10 maalmood lagu xukmo sheekada la yaab kale xiisaha aniga maanta aanu qabo waxa weeye sheekada 10 bilood hal 10 cisho kaliya ayaa lagu xukumay markaa ninkii waa sheekada iga yaabsay aniga intii aan noolaa weligii wadamada reer galbeedka dhowr iyo 10 sano 20 sano 15 sano oo ay xariga qofka ilmo yar xiriir jacayl la wadaaga nooc doona ma aha kabacdi waxa dhacday sidii ayaa markaa ay sheekadaas halkaas ay ku dhacday kabacdi waxa dhacday kaba sii darana ninkii Beth Pheasants inantii reer Brobeck muddo 2 sano ka bacdi iyada oo sidii aad ogeyd oo saamaxaad loo fidiyay oo dawladdu la saayirtay oo hooyadeedii aabaheed ay eegeen markii dambe jaarnimadii iyo dadkii iyo ehelkii iyo isku dhawaayeen iyo saaxiibtinimadii markaa ay reerkaas la saaxiibka ahaayeen ninka oo jaarna ay ahaayeen aad isugu wanaagsan weliba waxa dhacday inuu mar labaad 2 sano ka bacdi afduubkii hore mooyay mid kale gabadhii u geysto markaasi labaad maadaama oo sheekada anigu waxaan u fahmay in intii uu la maqnaa inantaasi uu jacayl awood badan uu nabadaaga uu inanteedu sheegtay ama gabadhaya wayna dhacdaa in qof xitaa dee la qafaashay haddana uu isbedelo maskaxdiisu qofkii waa iska badee maartay dee waana ina yaro way iska jeclaatay ninkii aakhirkii maxaa dhacday 2 sano ka bacdi inantii yareed way ogashay dhinacna ma ogola dhinacna waa caruur wali dhinacna waxba ku abuuray ninkii doo ninka weyn qofku weyn kabacdi waxa dhacday in mar labaad haddana uu la baxsaday waxa uu la baxsaday dalka Mareykanka gobolka California magaalada Pasadena ayuu geeyay halkaas ayay labadoodiba muddo ku noolaayeen markii muddo ay ku noolaayeen oo uu maskaxdii toos u bedelay waxa dhacday oo mucjiso ah in nimankii booliska FBI ay soo raadiyeen iyaga oo mar labaad reerkoodii ku soo wargeliyeen in booliska inantaas ay tahay qof la waayay kabacdi waxa dhacday FBI ayaa soo daba gashay dababartii uu ku hayay bay u yimaadeen ma dhici karto daynu kulay hotelka iyo boos uu ka baqayaa meelo guriga uu kareystiyo meelaha maartay ka fog maartay magaalada guryaha ka fog guryaasha ku yaala meelo qashuuqi hada sheekadu ma cadda maartay lagu sheego waxyaabahaas in sababta soo gelin waayay sawirkeedii iyo wixii information waxa weeye qofkii still family-dii daawac bay sheekadu u geysanaysaa hadii si direct aanu faafiyo wixii marka sheekadan waxa lagu soo qaadanayaa qiso dhacday oo lagu soo qaadanayay qisadu ma soo turjumay yani inaad in barnaamijkeenan wax ka ogow adduunka inay tahay ogaalka adduunka markay sidaa tahay waxa dhacday booliskii guud oo yimaadeen waliba qaybta FBI da u timi oo beers ka shaqeysa waxay labadoodiiba way soo qabteen inantii yareeda Brobeck reerkoodii ayay soo dhiibeen safar ayaa la soo saaray waxa weeye inantii yareeda safar bay soo baxday reerkoodii ayaa si nabadgelyo loo keenay kabacdi waxa dhacday isagii gurigeed lagu soo celiyay markaa inantii yareeda isagii boolisku way qabteen sidaas ay tahay waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah inay booliska ku yiraahdeen 6 bilood xariga ayaa lagu fulinaa waa arrinta aan arkay weligii marka wadamada loo eego sida wadamada cadaaladooda ama sharci shuruucda ay ku dhisantay waxay noqonaysaa mid cadaalad ka fog diinteena waxay ku noqonaysaa yani waa wax dambi weyn bay noqonaysaa cadiib markay sidaa tahay waxa lagu xukumay ninkii 6 bilood xariga markii lagu xukumay 6 bilood xariga ninkaasi ka bacdi xabsigu muddadii ku jiray muddadii markuu dhameystayna waxa nasiib darro ninkii uu qaaqaayay uu isla hadlay wuxuu noqday qofkii nin waali noqonayo maskaxdiisu uu soo waalanayso ka bacdi markaa waxa loo gudbiyay dhakhtarka waalida ama dhibirka loo yaqaan markii halkaasi la geeyay dhakhtarkii dhibirka ninkii xanuunkiisa baa ku sii batay dhakhtarkii buu waxa dhacday inuu halkaas markaa naftiisu ku baxdo oo ku geeriyoodo waxa soo taliyay warka markii ugu dambeysay walaalkiis waxana uu sheegay xiriirkii jacayl noloshiisii ninkaas ay u burburtay xiriirkii jacayl Jem Brobeck inantii yareed ay jacaylkeedii u burburay ninkaas oo sidaas uu noloshiisa ku halaagantay oo dhimashada ka xigay markii dambe uu ku dhintay taariikhdu waxa ahayd 2005 markii ninkaas uu geeriyooday waxaana uu dhintay dhaafkii jacayl uu qabay balse ninkaas waxa aan anigu u arkaan de yani Soomaalidu waxay tirahdaan nin in durban tuntay ila qalbayda wadada u maray markiisii hore jacaylkiisii ama jacaylkiisu meeshu la galay ayaa meel khatar ahaa in manay habooneen meel uu maray marka sida awgeed ina faanteen baan u malaynayaa sheekada dibaddeeda iyo maaragtay halkii u socota sheekadu
in waxa weeye qofku aan waxyaabaan habboon wax kasta uu jacaylku u qaaday inaanu qofku samayn karin oo waxyaabo shuruuda ama waxyaabo jira aawadeed darteed aawadeed oo xidhaya inay jiraan. And hopefully I think you will love this message insha allahu tacaala inay dad badan wax ku fahmi doonaan. sheekadana waxay noqonaysaa sheekooyinkan aan soo tabin doonaan sidaan horeba idinku sheegay ramadaanta, xataa ramadaanta haddii laga baxo waxay noqonaysaa mid taxanaa. barnaamijkeenana waxaynu bixinaynaa sidaan horeba idinku sheegay ogaalka dunida. wax ka ogow dunida aad ku nooshahay. haddaad adigu nolol ku nooshahay qof kale ayaa nolol kale ku nool. haddaad adigu si u fakarayso qof kale ayaa sida kale u fakaraya. waxaan filayaa inay fariintaasi soo gaadhay. ramadaan mubaarak baan leeyahay. meel kastoo aad joogtaanba nala socda, nagu xidhnaada channelka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. intaan barnaamijkay ka bixin waxaan idin leeyahay haddaad channelkay ku cusub tahay mar labaad iyo mar saddexaad, please subscribe, like, share and comment. isma dhaafna.